waxaan marka ugu horeeya salaanta kadib jeclahay inaan halka hambalyo uga diro dhammaan booliiska Soomaaliyeed sanad guuradii ka soo wareegatay 76aad madaxda hoggaanka guud ee ciidamada Soomaaliyeed ee booliiska saraakiil xigeenada dableyda iyo xaasaskooda waxaan leenahay hambalyo sanad guurada 76aad booliiska taariikhdiisii taliyaha ayaa soo sheegay ummad kasta oo meel isugu timaado waxa ugu horeysa ee ka amaamulma ama markay ismaamul noqoto waa police waa ciidankii ugu horeeyay ee Soomaaliya taariikhda ay yeelato ciidan rasmi ah oo ummadda u shaqeeya marxalado kala soo duwan soo maray 43kii la aasaasay waxaa saldhigan aan joogno sida la sheegay la aasaasay 44 oo qoyskii aanan xirsi Allah u naxariistay halka ka sheegtay gabadhiisa oo iyadana ciidan ku soo barbaartay inuu taliyay ugu horeeyay yimaada taariikhdaas waa taariikh wanaagsan oo runtii in la xuso u baahan meelihii ugu horeeyay ee booliisku ka aasaasmay ayay ahaayeen deegaanadan hadda aan joogno burburkii Soomaaliya markuu dhacay ciidankii booliiska ee Puntland markaas joogay ma aysan noqon dadkii kala tegay waxay hawshoodii ay galeen isla maalintaas aysan joojin dhammaan saldhigyada booliisyada ee deegaanadan ku jira way shaqaynayeen iyadoo ay nasiib u heshay deegaanadan inuusan ku dhicin wax gaab ama firaaq maamul ah markii xukuumaddii dhacday dadkeedu isla markii waxay go'aansanaadeen iyagoo ahaa dad kala dambeeyo isxukumay inay odayadii iyo dhaqankii iyo dadkii waxgaradka ay maamulkii la wareegeen muddo yar kadib waxaa la sameeyey maamulkii ugu horreeyay gaalkacyo lagu abaamuday horaantii 92 aan ku heshay dhexdeedii muddo kadib waxaad ogtihiin waxaa si buuxda taladii ula wareegay ururka SSDF oo markaas u soo halgamayay in ay ummadan uu ka dulqaado nidaamkii markaas jiray oo u arkayeen dadka Soomaaliyeed badankiisa gaar ahaan dadka reer Puntland nidaam tacaddi ku haya habka ismaamulka ee dadku u baahnayeen ururka SSDF wuxuu taladii ku wareejiyay 98 maamulka Puntland ee maanta dhismay marka waxaa la oran karaa dalkan khaasatan Puntland marna dawlad la'aan kuma dhicin taariikh hore oo fog iyo mid dambe oo jirtay waa astaan fiican oo dadkan leeyihiin oo ay ku caanamaaleen barwaaqada iyo horumarka iyo deganaanshaha muuqdana waxaa u saldhig maamulkaas sidoo kale maamulkii Puntland ee la aasaasay August 1998 isla horaantii 99kii wuxuu dib habeyn ku sameeyay oo dhidibada u aasay ciidankii booliiska ee Puntland oo ciidankii ugu horeeyay oo isna maamulkaas u aasaasay kii Puntland wuxuu noqday kii booliiska qaybtiisa ee loo yaqaan booliiska oo ah qaybta dambiyada iyo bulshada la shaqeysa sidoo kale sidoo dastuurka dhigayo waxaa la aasaasay qaybtii daraawiishta oo iyadana nidaam ahaan isla ka tirsan nidaamka state-ku gaarka u yeelanayo aan ahayn militariga guud ee Soomaaliya laakiin qayb daraawiishta ah oo ah state-ka waa qaybta sida militariga u tababaran oo loogu talagalay inay state-ka difaacaan ciidamadii kaleeto oo nabad sugidda iyo asluubta intaba jaartarkii ugu horeeyay ee Puntlandna waa lagu xusay ciidamada ay Puntland yeelanayaan xeerarkii ugu horeeyay ee la xeeriyayna xeerarkaasi ahaayeen hab dhismoodkooda iyo qaabka u dhismi doonaa runtii muddadaas dheer dargufo kala badan bay soo mareen waxay nasiib u heleen dad fara badan oo ahaa kaadirkii ciidanka booliiska ee Soomaaliyeed baa halka joogay dhismo fiican ayay heleen iyo ambaqaad hor leh waxay la wareegeen dhammaan nabadgelyadii dalka waxay mideeyeen
ciidamadii deegaanadaas magaalo walba guddigii markaa jiray nabadgelyada iyo ururka SDF hoostagay ayay hal talis u sameeyeen ciidamadii ilaalada canshuuraha la sameeyey dhammaan ciidamadii uu lahaa CID iyo intii kaleeto oo traafigii iyo intii uu ciidan lahaa booliisba waa la amaamuday runtii shaqo weyn oo baaxad leh ayay soo qabteen taliyaal badan baa isaga bedelay waxaa ilaahay mahadiisa maanta inay soo gaartay meesha aan maanta joogo waxaan ku faraxsanahay in dhowaan la taliyaal xafiiska iga ah ay ku howlan yihiin siday dib ugu aasaasi lahaayeen waxyaabaha ka dhiman oo horumarka u baahan marka qaybaha ay u dhisan tahay structureka laga tago in la tayeeyo oo la dardargeliyo inay ku howlan yihiin waxaan si gaara ugu mahad celinayaa generaal bashiir oo ahaa taliyihii booliiska soomaaliyeed oo runtii ah dadka farabutiriska ah ee aqoonta booliiska ee soomaaliya maanta leh iyo generaal khaliif ciise mudan oo isagana xafiiska labadoodaas inay hadda si gaara ugu howlan yihiin sidii loo horumarin lahaa tayada ciidanka booliiska oo waxyaabaha ka dhiman agabka iyo tababarka iyo qorshaha ciidanba loo dhammaystiri lahaa dabcan hadafka ugu horeeyey ee xukuumaddan ay bulshadeeda u soo jeedaysa waxaa ka mid ahaa inay dhammaan halkudhigeeduna ahaa tayeyn iyo tiigsi inay tayayso dhammaan maamulkii muddada dheer soo socday oo ay si dabiiciya ay u tahay adduunka oo dhanna wax ka jira tahay markuu muddaba joogaba oo weliba caqabadaha dalka soomaaliya ay aada u badnaayeen habac hadduu galo in la tayeeyo oo kor loo qaado in la tiigsado meeshay dadka ay ka malaynayaan inay u noqdo hay-adaha dowladdu hay-ado u dhammaystiran wax walba oo suuragal ah oo hay-addaas u sahlayay inay waajibaadkeeda gudato dabcan waxaad ogtihiin weli soomaaliya waxay ku jirtaa marxalo ay ku jirto dowlad dhis maamulka puntlandna soomaaliya uu qeyb ka yahay walow uu haysto fursado ka fiican meelo badan oo soomaaliya ah laakiin haddana caqabadaha jira oo ugu horeeyaan miisaaniyadda oo ku filnayd duruufaha ku xeeran dalka oo dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amniga oo meeshii la rabay aan joogin dalka oo nidaamkiisa siyaasadeed aan fadhiisan dadka oo muddo dheer ku jiray habac degaano kaleeto oo isku socda waxyaabahaasoo dhan waxay wiiqi karaan awooddii maamul ee la filayay in ay bulshadu ka helaan waxaase ilaahay mahadiisa in dadka mas-uuliyiinta ah ee kala duwan ee qeybaha ciidanku ay baraarug fiican ay ku jiraan dadaal badan samaynayaan si aad ogtihiin daraawiishta waxaa loo sameeyey ilaa 4 xero oo cusub oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidanka booliiska horey wuxuu u lahaa dugsiga tababarka carmo sidoo kale xerooyinkaas la dhisay ma aha wax oo ciidan gaara u qorshaysan waxa weeye waa in ciidamadoo dhan lagu tababara marba aqoonta ay u leeyihiin ay helaan dugsiyadaas oo dhan waxaa ka faa'iidaysan doona ciidamada puntland ay leeyihiin qaybahooda kala duwan puntland waxay nasiib u leedahay 2 akademiya ayaa ku yaalla oo akademiyada booliiska iyo akademiyada asluubta oo runtii labaduba ay yihiin standard fiican oo ay ka soo baxaan dad fara badan oo puntland iyo dad kale oo soomaaliyeed intaba oo lagu tababaro isteedyada kaleeta dadkooda halku lagu tababaro sanad guuradan waxaan rajaynaynaa inay aasaas u noqoto in ciidanka soomaaliyeed oo aan ogahay duruufaha haysta oo dadka nabaddiidka ay ku hayaan oo ay u diidan yihiin inay shaqadooda si habsamile u gubtaan oo ay dheeri ka tahay shaqadii booliiska laga rabay shaqada ay u weeriso oo la dagaalanka argagixisada oo har iyo habeen u taagan runtii arrintaas waa arrin u baahan shacabka reer puntland oo lagu yaqaano dhiifoonaan inay dhiifoonaanta badiyaan in ay u diyaar garoobaan inay dadkooda ka difaacaan dhagarqabayaasha waxaan si gaar ah
halka rabaa inaan uga mahadiyo kooxihii fanaaniintaha ee kala duwanaa ee waa beri iyo horseed iyo kooxdii ka timid burco runtii suugaan isugu jirta heeso iyo majaajilo runtii xaqiiqada ka turjumaya halka ka soo jeediyey fanaaniinta mar walba waa indheergaradka ummadda waxay u tilmaamaan waxa wanaagga ah iyo meelaha dulduleelada jiro wayna ammaanaan wayna dhaliilaan marka waxaa rabaa dhaliishana in la qaato wixii wanaaga oo markaas la sheegana ay noqoto wax dhiirigelin u noqota cidda ay markaas ay ku wajahantahay runtii maanta habeen farxadeed bay ahayd habeen khudbado badan inaan isku weydaarsanay ahayd ma aha waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay dadaalka socda waxaan u rajaynayaa dhammaan booliiska soomaaliyeed gaar ahaan booliiska puntland inay ku guulaystaan waajibaadkooda dastuuriga ah iyo ummadda xilka ay u qaadeen oo ay noqdaan kuwo lagu seexdo nin lagu seexdo waa seexan baa la yidhi inay soo jeedaan xilliyada adag inay u dhabar adeegaan duruufaha kala duwan inay dadkooda duruuftiisa ay kula noolaadaan waan dareemi karaynaa dalkeenna meesha u marayo laakiin waxaa la rabaa duruuf kasta in lagu shaqeeyo annaguna waxaan ballan qaadaynaa duruuf kasta oo lagu jiro waxa ay mudan yihiin inay naga helaan mar walbana waxaan u taaganahay inaan horumarkooda ka shaqayno muddadii hadda aan joognay waxaan filayaa ciidamada booliisku iyo ciidamada kaleetaba inay mushaharooyinkooda bil walba qaadanayeen oo aysan ka daahin waxaan u rajaynaynaa sida hadda taliyuhuna sheegay in waxyaabaha ku dhex jirjira oo booliiska ana laga saaro in ciidamada la tirakoobo in hadda wixii ka dambeeya askariga booliiska ay waajibkiisa gudanaya askarta kaleetaba ay xuquuqdooda xilliga ku habboon ay helaan si shaqada ay u noqoto wax lagula xisaabtamo oo ay noqoto waajibaadkoodana inay ka soo baxaan marka xuquuqdooda ay dowladdu ay meel saarto waajibaadkoodana waa lagula xisaabtami doonaa waxaan rabaa inaan halka u sheego ammaanada dadka noo dhiibtay waxaan rajaynaynaa siday tahay inaan uga soo baxno inaan la xisaabtami doono cid walba oo aanan markaas waddadii la rabay aan ku socon waxaan ka war dhowreynaa khubarada hadda ku dhex jirta xaalka ciidamada sidii loo tayayn lahaa oo dib hore loogu samayn lahaa meel fiican bay marayaan ciidamo badan baa la xareeyey muddadii aan joognay ciidamada gobolka mudugna iyo gobolka bari waxaa lagu xareeyey carmo ciidamada gobolka nugaaliyeena waxaa lagu xareeyey dugsiga abqaale ciidamada kaleetana deegaanadooda ayaa tababaro kookooban lagu sameeyey isbedelaa lagu sameeyey taliyaasha qaybaha qaybo badan ayaa isbedel lagu sameeyey tababaraha waxaa loo sameeyey ciidamada c i d da waxaa kor loo qaadayaa nidaamka maamul ay ciidamadu leeyihiin intaasoo dhanna waxay tahay saldhigooda dowlad wanaagi iyo dalkan horumarkiisa in laga shaqeeyo waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan u hambaleeyo ciidanka booliiska meel walba uu joogo maadaama ay tahay maalin ay wadaagaan 20 December meel walba ay joogaan hambaliyo labaad ayaan u dirayaa aad baad u mahadsantihiin hambaliyo